السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين سومالي محمد والسلام يا دمانتين. قليف سلام الله صاحب شاته. وصلوا هذا والوالد سلامة يا دمانتين. سلام دبديد وعربنا قلبتين ان شاء الله تعالى بالابديت كسينو iyo meesha xaal marayo arintii gobolka ka taagan oo bariyahan ba soo jiitamaysay isdahayna bal marka siyaasiyiintii iyo dadkii dhaqanka iyo aqoon-yahaniintii kale ayaa wax ka dhihi doona, laakiin waxaad u malaysaa inay iga furso wayso marka inaan wax ka yiraahdo maadaama ay xoogaa soo jiitantay wax hadda isxilqaamo oo xilkii mas'uuliyadda hayaan guta ama baldadnimo kale oo bulshada qaato ee arrimahan ka hadla aan waay. haday noqoto mas'uul dawladeed oo federaal, haday noqoto mid Hirshabeelle, haday noqoto mid gobolka Hiiraan, haday noqoto siyaasiyiintii kale madax banaanayo xildhibaanada lahaa ama ilaadu ku roon yahay kaloon hadda jeegooyinka aan ahayn. waxaad moodaa marka inay igu soo aruurtay oo ay qasab igu noqoto marka bal inaan wixii update oo xogaha halkaas ka jira bal dadka ay qusayso oo xogahaas ay aad u raadinaya kuwa nabadeed, kuwa nabadgelyo, kuwa horumarineed, kuwa siyaasadeed. waxaad u malaysaa gobolku si kastaba horta inuu haray dhinac walba, xataa social media uu ku dilan yahay. dadka hadda gobolka ka soo jeeda xataa social media isticmaala xataa wax update adduunyada lagu nool yahay oo qarniga 2020aad 2019 inay ku nool yihiin mudba. waxaad u malaysaa in la nool yahay 1980kii dadku inay nool yahay u malaysaa wax dhaqdhaqaaq iyo wax kala socona ma lahan. marka insha Allah ta'ala bal waxaan rabnaa inaan arrimihii halkaas dhacdooyinka halkaas ka dambeeyay oo labadii bilood ugu dambeysay halkaas ka dhacayay oo maantay shirki jiraado dabageed u dambeeyay inaan bal insha Allah ta'ala wixii update oo aan ka hayo aan halkan dadka qoysas kula wadaago talooyin dadka degan gobolka u danan halkan ka jeediyo maadaama adduunyadu iska noqotay dadkii raba inay isxog wareystaan oo is helaan adduunyadu iska noqotay meel yar oo lagu kala war qaadi karo. marka insha Allah ta'ala arrimahaas aan rabaa inaan falanqeeyo qofkii marka xog ta aan ka hadlayo dareensan oo xog ka hayo oo wax lagu beeranayo insha Allah ta'ala jaanis baan sii doona hadhowdii marka aan xogtayda aan bixiyo insha Allah ta'ala. waxaan rabaa horta inaan ku bilaabo saddexda qodob meesha ku qoran aan rabaa inaan falanqeeyo. kow shirka jaraa'ido maanta ninka la yiraahdo dabageed arrimihii bariyahan xuduudka feerfeer ku soo laalaabanayay iyo golaha deegaanka la rabo in magaalada Beledweyne loo sameeyo maadaama qorshahaas soo socdo. waxaan hore nagu daafuray Beledweyne golaha deegaanka. marka waxaan rabaa bal intaan waxna waa wax xoga oo arrimaha hadda taagan laga rabo, waxna waa wax tala ah oo arrimaha qaar quseeya insha Allah ta'ala. marka intaas aan rabaa inaan falanqeeyo hadhow diino qofkii marka xogahaas iyo talooyin intaba hayaba oo jaanis baan sii doonaa idin ilaahay insha Allah. haddii aan ku bilaabo marka arinta u horeysa ee ah shirkii jaraa'idii maanta Yuusuf Dabageed qabtay cabashada u jeediyay madaxweynaha Hirshabeelle meesha ka soo bilaabatay xilligeed in laga hadlo iyo inta maroo jaanis soo maray Yuusuf Dabageed oo wax ka qaban karay. horta waxaan rabaa marka u horeysa Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed gobolka Hiiraan wuxuu gudoomiyay gobol ka soo noqday 5 mar ayuu gudoomiyay gobol noqday 5 mar ayuu gudoomiyay gobol noqday oo waagi Cabdullaahi Yuusuf ay u horeyso haddeero hadda maxaa Cabdiwaaru magacaabay inay u dambayso. 5taas mar system muuqdo oo la mahadiyay oo dawladnimo ah wuxuu qabtay markii ugu horeysay oo ah inuu magaalada wadooyinkeedii furay
oo buushashkii iyo maqaayadihii wixii wadooyinka laga dhex dhistayo xilligii fowdada la dhistayo sharci darrada ahay oo jajabshay afartii maro kale yuusuf axmed hagar waxa laala wax system dowladeeda oo gobolka ku soo siyaadiyay horta ma jirin lama galay buu galayay asoo lama galay ku jirin xilka laga qaaday waxa ku soo xigtay haddeer oo buundada ceelgaalay 2 toddobaad ka hor ay goday ma uusan dhiseen oo ilaahay duu ku roon yahay ma mas'uuliyadda iska masaareene wixii inta la marinaya buundada ceelgaal ku xiran waxa waa baabuur magaalada ka bixi kara ama soo gali karana ma jiro marka danta qasabto horta in la dhiso buundada ceelgaal la dhiso waana ku bogaadinaya inuu ceelgaal buundada dhiso sababtoo ah laba buundo ka korayso oo Saalax Jeerar iyo Surtaag ku kala yaala oo sida buundada ceelgaal muhiimta u aheeday ayaa midna waxay go'an tahay dhowr 20 sanadood midna waxay go'an tahay 2 sanadood ku dhawaad marna ba la isku mahoolin oo wax ka mawsa qaban oo isku mawsan hoolin sidaas darteed ceelgaal waxa ku xirnay hungurigii iyo cashuurtii ayaa ku xirnay dabageed iyo maxaa Cabdi Waare maxay isku haystaan dabageed iyo Cabdi maxay Waare waxay isku haystaan lacagta cashuurta gobolka Hiiraan laga qaado oo magaalada Balweyne ka gaajoon tahay oo gobolku ka gaajoon yahay oo ciidamadii ammaanka suuga ka gaajoon yihiin oo deegaanadii la rabay in lagu hormariyo ay magaalada Balweyne ka gaajoon tahay lacagtaas waxay ka soo xarootaa barta controlka Kalabeer iyo magaalada Balweyne meel kale gobolka cashuur laga qaado ma lahan labadaas meelood cashuur laga qaada cashuurtaasi waxay ku dhaceysay qasnada Hirshabeelle wasiirka maaliyadda Hirshabeelle qabanay dabageed waa soo ururna wuu sii diray maadaama dabageed marka hadda la rabay in xilka laga qaado ilaa weyn wadkiisa waa ogyahay la yiri arintan waa u raatirasho rabaa inuu ka dhigto raatirasho ayuu rabaa inuu ka dhigto arintan oo ah in ma taqaanahay oo foodadan kacsho hadhow diino oo sibxado sababtoo dabageed almost 6 bilood hadda meesha jooga cashuurta waa la dirayay dhaqaalaha waa la dirayay intaas jawhara loo dirayay waxay isku la dhaceen gudoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan ducaalaana garahay waxay isku la dhaceen cashuurtan la qaaday jawhar la geynayo dadkiina u baahan yahay gobolkuna u baahan yahay wadooyinkuna u baahan hal la joojiyo haddii aan la joojinayn cashuurta degmada Matabaan ka timaadaahe qaybtii degmada Matabaan laga siiyo iyo waxba laga sii mahayo ducaale waa ka jirta qabnoodo kore bacda kore controlka dhigtay halkaas oo control muddo 3 bilood u yaala cashuurtana gaar baabuurta loo qaadaa waa tii la isku dayin lagu weeraro meesha laakiin ay suura gali waysay sabab badan oo jira awgood weerarkaas ma dhicin marka Yuusuf Axmed Hagar wuxuu maanta ku hadlay qadiyad Hiiraan u danana maahan qadiyad aan xawaalo u danana ma ahan qadiyad ilaa doo ku roon yahay sida u dhigay reer Hiiraan ay u soo dhiibeen ma ahan hal qof oo reer Hiiraan dabageed ma dhihin oo hadal ما يسندهن محمد عبد وارن دعوة كنه لماذا نن دن هيران هاينا مچرو مدن حوالا هاينا مچرو انت قبيلكم احمد سو قلنا ما دام نمك سو قبيليين او اسكو جفيين وقسمين للشيغا محمد عبد وارن يا محمد نكلا يوسف احمد هاجر دبقيت قديت قبل يا مد بيلاد انت اسكو مهايان ان والبا مشروعا كقبياه نوال بمشروع أيها كقبيعة بيهوسي على إسكاركي وايو هيران سيدي هيرشبيل وارا لوغو ديبي 3 بلو 4 بلو المسؤول حل لما يستما بجربا حدو نقود دوق دقمو حدو نقود قدومي قبل حدو نقود تلي عيدا حدو نقود مد إمارية قرون حدو يعني ما بجربا قدومي نين حل لو ديبي أو 3 بلو 4 بلو خبطا وحي ملحن سابتو 3 بلو 4 بلو كد وقف وحبوه فهم إياه qofku waxba fahmaya oo ilaahay duu ku roon yahay waxyaabihii markii hore oo ku soconayo laga yaabo inuu dadnimo intuu muujiyo oo dadnimo la yimaado oo diida laga yaaba Soomaad garanaha horta maqal ma jira horta maqal ma jira ay hello maqal ma jira maqal waa ma sintin sidaas daraaddeed
waxaan rabaa inaan dadka bulshada gobolka hiiraan ama beel ahaan ama guud ahaanba aan u sheego maxamed cabdi waare iyo yuusuf axmed hagar danihiinna qoys ama qowmiyadeed oo gobol ahaana midna isku mahaastaan waa in la helaa gacan labaad oo dadka iyo gobolka iyo deegaanka arrimahooda daacad ka ah oo rabto inay wax qabato in la helo dadkuna baawaray leeyihiin waa inay ugu yaraan bannaan baxaan waa inay muujiyaan in maafiyadan meesha fadhisa ee 3 bilo 4 bilo kastaba la isbedelayo oo mashruucan oo jawhar iyo meelahaas lagu wado jawharna waxba loogu qabanayn beledweynaha waxba loogu qabanayn oo 2 nin ama 4 nin jeebkooda ku dhaca ee cashuurtii Hirshabeelle oo dhan la qaatay oo wixii hay'ada laga soo qaaday la laqay oo wixii dawlad laga soo qaaday la laqay oo amaankii dadka gobolka labada gobol aana waxba laga qaban oo labada gobol qabiiladu isku dilayaan oo ilaahay duu ku raa shabaab dhex dhooban yahay oona horumar ka jirin oona wada la dhisayn oo biyihii magaalooyin ku fataheen oo labadii garoon oo labada magaalo waaweyn balweyne jawhar isa shaqaynaynin oona balcad iyo jawhar la isku mari karin oo buulo burtiyo balweyne la isku mari karin dadku intaan ka badan maahan inuu xoolo iska ahaadahay ummaddu intaan ka badan intaan ka badan hurudo maalin kastana lagu gorgortamo oo mid markuu xilka si taga oo isaga dhigna wadaniyo oo qeyraal hodada ka naxayo deegaan ka naxayo biri ka maalin mugow waxa uu aruursay soo dhamaadaana lagu soo celiyo aqli soconayo ma ahan waxa la rabaa marka inaanan la kala safan oo beel ahaan loola kala safan oo jif ahaan loola kala safan oo maamul ahaan loola kala safan oo dadka waxgalka ah ay yiraahdeen what is going on enough is enough tuug aniga maalinkii xilka laga qaadano shaar ii soo gashado oo wadaniyaan ha yiraahdo qabiilka u dooda yiraahdo gobolka u dooda yiraahdo maalinkii xilka loo soo dhiibano meesha uu gala aan lagu arag cashuurta jeeb isa gashadahay intaan ka badan anagu ummadul qaadanayno mana rabno mana doonayno qaas ahaan bulshada gobolka hiiraan qaas ahaan beledweyne oo maamulku maanta ka shaqeeyo intaas haddaan la helin waxaa sugtaan in biri mid kale cusub leedii keeno oo yiraahdo buunda idin dhisiya garoonka idin dhisiya intaan ka qabanaya maalinkii la soo magacaabana idin ku dambayso maalinko maqal xilka laga qaadan oo afku furto yiraahdo waara saano iyo kada wax soconayo maaha yuusuf dhaqaale waxba kama qaban ilaahay duu ku oran yahay nabadgelyo waxba kama qaban horumarna waxba kama qaban feer yaabalay iyo xuduugle oo xuduudka ah qabiilada mataqaanay shaqada ka dhacday dad baa la afduubay hantiya la afduubay hadalka muusan geysan asiga gudoomiyaha asaga gobolka dawladda Hirshabeelle u qaabilsan asiga mas'uul ka saaran tahay kama uusan hadal marka waxaan rabaa inaan iraahdo yuusufow anaga 100 mar ashaar noo soo gashatay 100 mar ayaad ilaa duu ku roon yahay wadanisan ka dhigtay hor iyo dib waan ku naqaanaa 5 maraad gudoomiye soo noqotay gobolkaas waxa la waxad maanta uga tagaysid oo taariikh 5 marba ah ma jiro haddii markii hore wax ka halaabeen oo markii labaad wax ka halaabeen oo markii saddexaad wax ka halaabeen oo markii afaraad wax ka halaabeen adeerka cali markii shanaad inay wax ka halaabaan aqliga bul'aadka yeeli maayo marka xilka haddii laga qaado shalayba adoo sidaas ha lagu dhiibay dadkaada dhinac ka raac maamulaan la wareegay iyo maaliyadaan la wareegay iyo amaanaan la wareegay iyo waxba gacanta kuugu ma jiraanba maaliyadana gacan kuugu jirin amaanana gacan kuugu jirin talana gacan kuugu jirin waayo baardheerna ma tagi kartid oo shabaab haasta beer gadiida ma tagi kartid oo ducaala haasta indhacaadna ma tagi kartid oo shabaab haasta beledweynena dhinacna Amazoona ka joogta yaa dhinacna ninka la soo magacaaba ka soo degaayo dhinacna waara ka degan ilaahay amarkiis marka amaan iyo talo iyo tigaad gacan kuugu jirto niyo malaha hadda xaniyaasta yeelatay gobolka inta taliyaha gudoomiyaha ka eeday aad shabaab ka saar laheeday oo maaliyada hagaajista laheeday oo dadka waxay kugu taageeraan maanta alla ima laheeday waxbay ku noqon laheeday marka yuusuf waxaan ku leeyahay meeshan boorsada ka xirta adigu isaga tag meesha waxay soo haray maxamed cabdi waaro hiiraan iyo Hirshabeelle iyo gobolka Shabeellaha dhaxaad waxa uu tahay gudoom madaxweyne u tahay maalinkaad imaatay
hirshabelle madaxweynaheeda iyo maanta inta ka dhaxayso gobolka hiiraan afar gudoomiye gobol maraya magaalada balweynena 5 magaalo maraysa talayaasha ciidanka intoo kala la bedelay adduunyada kama dhicin maamul 2 sano ka yar oo 5 gudoomiye gobol magacaabay adduunyada kama dhicin maamul 2 sano ka yar oo 5 tali ciidan magacaabay ammaankii waxa laga qabtay uu tala gelin nabadgelin cashuurta gobolka dhaqaalaha gobolka in la hagaajin ugu maadna tala gelin midnimada iyo dibishiista gobolka in wax laga qabtay ugu maadna tala gelin finna cindi geel waa adiga dhibaato oo dhan waa adiga ilaa waxa la madax meel ka sareyso la salaax ma leh anuu maalinka lagu doortay rajo badan aan qabay oo aheeday kow maxamed cabdi waaro waa nin dal jooga waa nin xaaladaha wadanka ka jira si fiican u og waa nin 30 sanadood militariga u shaqeynayay waa nin geed walba iyo tuulo walba iyo birin walba iyo jabad walba iyo wada walba iyo diqdiq walba oo hiiraan iyo shabeellaha dhexe ku yaala yaqaana waa nin haday ugu yaraato 5 qoys oo meel degan 3 qoys oo kamid ah yaqaana yah 5 qoys oo meel degan oo ka soo bilaabo Matabaan ku kan meesha la yiraahdo Dirmoole 5 qoys oo meel degan 3 kamid ah nin yaqaano ayaan ku maleynaa anigu horta waa nabad hayba ilaa 30 sano halkaas ka shaqeynaysa laakiin wixii laga filayay iyo waxa la imaatay waa aad iyo horta u kala dheerihiin nin akademiya wax bartay dadka yaqaana deegaanka yaqaana nabadoonahay gaajo aysan hayno anu aan gaajo ku ogeyn markii ugu dambeysay ayaa dhaheeday nasiib darro waxaan noqotay halkii cir laga filayay caariyaama ma ka timid halkii miyaay laga filayay caariyaama ma ka timid aan noqotay yah gobolka shabeellaha dhexe duq magaalo kama badishid tali ciidan magacaawdid gudoomiye gobol uu magacaawdid gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe adigoo joogo markaa timid markaa maanis wuu joogay 5 gudoomiye gobol la magacaawday soo jooga duqa jawhar sidoo kale 5 duq magaalo la magacaawday dadkan dhibaato intaana ugu filan adiguna waad ogtahay adiguna sharaf yeelamaysid adiguna wallaahi haddaysa dadkaada iyo gobolkaada iyo deegaankaada aysan sharaf lahayn jawharna sharaf ku yeelamaysid xamarna sharaf ku yeelamaysid dowlad goboleedyada markay isugu yimaadaan sharaf ku yeelamaysid karaamo aad yeelanaysa adduun ay qaran midna ma jirto gobolkan hal la samata bixiyo oo siyaasadaana loo samata bixiyo dhaqaalahaana loo samata bixiyo dib u heshiisiin ahaana loo samata bixiyo haddii la waayo sharaf dhacaas iyo foolxumadaas oo heer bulsho ah oo heer gobol ah oo heer deegaan ah oo heer qowmiyadeed ah unbaa saa u dhex fadhi doontaan faciin iyo raggay la midka ahoo meelaha ay la mid hogaamiyano hadalkiinu wuxuu ka noqon doonaa waxaana macna aana lahayn nin markuu joogano aan la tirsan markuu maqan yahayna aan la tibin aad noqon doontaan horta labadaas nin intaasaan uga baxaya oo si hiiraannimo ah si tolnimo ah aan ula hadlayo igamana dhug yara shacabkana waxaan leeyahay ilmaadeerayaalow dhibaatada waxa lagu hayo waa dika waxa cashuurtooda la qaadana waa dika waxa la dilayo waa dika kuwa aeroboorada iyo waddooyinka lagu dhawaa waa dika kuwa buundada markay ka qodo dhibaato soo gaaraysa waa dika kuwa abaarta markay dhacdo biyalaanta iyo haraadka u dhimanaya waa dika kuwa markay magaalada biyo soo galaan biyaha ka qaxayo ee rafaadkii daacuunka iyo cudurrada ku dhacaan waa dika yah haddii aad iska daawataan dhibaatada sidaan laydinku hayo oo heer gobol iyo heer degmaba ah dhibku sidaan baa idinku jirayaa weligiinno rafaadkaas baad ku jiraysaan dadku cod buu leeyahay bulshada ka soo dhaxbaxdo fariinta bulshada gudbisa aqoon-yahanina ka soo dhaxbaxa waxa ka soo dhaxbaxa hogaamiye dhaqameedyo waxa ka soo dhaxbaxa dhalinyaro fariinta bulshada gudbisa oo ah gaajada iyo dadka dhibka markaas haysa kii soo baxaba cali shaqaysto noqday yah kii soo baxaba oo ama dhalinyara ama siyaasiya ama hogaamiye dhaqameeda wuxuu noqday cali shaqayste
waxaana keenay waxa waaye markii hore oo la keeno waad buubuunisaan marka dambe waxay ka sii tagaan qabyaaladu intuu ku beer la xabsado aad ku kala jabtaan mid walba halkaas oo raaca marka qadiyada la raacay ayuu raacaya gobolka adika ba wax ka qaba karo wax ka bedeli kara siyaasaddiisa dhaqaalihiisa amnigiisa inay waddanka dhashil Soomaaliya ka socdo magaalada Beledweyne oo magaalo ganacsi ah oo inta soo magaalo iyo gobol ku xiran yihiin shil Soomaaliya dhan laga diiday waxa qali gali kara maahan adika aan ogolaateen ya adika ayaa ogolaateen in la yiraahdo sidii Mareykan California iyo Washington kale sidoo kale dollar wax ku iibsad in la yiraahdo baareerana ba shil Soomaaliya wax looga tamatamaan wax looga shil Soomaaliga adika ogolaateen ya adika ayaa inta ogolaateen dibna waxa idinku filan in markii abaar racdan aadna gurmad ilaha markay fataad racdan aadna gurmad ilaha shil Soomaaliga wax ku iibsan karina intaas dhibaato idinku filan intaas ayaa horta dhibaato idinku filan intaas aan ugu baxay labadaas nin waxaan rabaa inaan ugu arrimihii deegaanka xuduudda ah ee bariyahan jiray sidee wax u dhaceen iyo hadda meesha wax marayaan waxaan rabaa horta marka hore hadda maanta xilligan dad xiran ma jirto qaamii hore dad la afduubay 5 nin iyo 5 gaari oo cagafada beeraha falaa la afduubay subaxdiina waa la soo deeyay deegaanka feerfeer maanta waxa tagay taliyaha ciidanka militariga halkaas uu kula kulmay dhigiisa oo militariga Itoobiya meesha jooga iyo taliyaha nimankii oo dawladda deegaanka booliska liyo booliska waxyaalaha ka soo baxayo in la soo afgartay oo la soo heshiyay oo niman jawaasiisa oo labada dhinac warku u kala gudbi jiray oo kuwa xaggaana dhigi jiray meeshan hubaa ka socday iyo ciidamada halkan lagu ururinayo waa soo weerar soo socdo kuwaas markii warka loo sheegay inta soo noqday dhaha kuwan waa la isku socdaa isdiyaariya xabada bilaa markaa nimanka aragtaan ayaa la soo qabtay 3 nin ah magaalada la keenay cawada ku xidhan yihiin Beledweyne la keenay nimankaas xaaladoodii waa degan tahay beerina waa la falanayaa dadka kale ehelka oo meeshooda joogan markii horeba waxa la isku haysay dulmi ahaayeen iyo war la kala qaaday wixiina waxad moodaa xogaan soo afjarmeen marka waxa rajeynaa meesha nabad ka dhacdo dhulka dadku waa ku filan yahay beeru waa ku filan yihiin daaqu waa ku filan yahay magaaladu waa ku filan tahay marka in la iska qabto dadka yar oo labada dhinaca oo dhibaatada ku faa'iido ilaa adduunyada waxa waaye dagaalada socdo adduunyada ka socdo raga ku faa'iido hubka laga gataa kuwa Soomaaliya ka socdo raga ku faa'iido ama siyaasadaan ugu faa'iida ama dhaqaalahan ugu faa'iida oo yiraahdo reebel la weerar lacag soo dira reebel la sicina lacag soo dira hubal rabaa lacag soo dira dadkaas yarka marka labada dhinaca oo deegaanka labada deegaanba waxba ugu aalin oo labada bulshaba waxba ugu aalin waxa soo jeedinaya in dadka la iska qabto oo labada dhinacba maamulaha ka jira haday noqoto heer federaal oo Itoobiya iyo kilka sanaad haday noqoto heer federaal iyo Hirshabeelle oo Hiiraana waxa la rabaa arrimaha dadka samadoonada ee odayaasha ah kuwa aqoon-yahaniinta dadka u damqanaya ee deegaanka jooga ee dhibaatada jirta arkaya inay iskaashadaan oo arintaas xal laga gaaro oo aysan fidnada socon ilaa fidnada gacmo la qabtay leedahay la qabta ma lahan ya fidnadu gacmo la qabtay leedahay maana sayn la qabta ma lahan waxaan rajaynayaa in arintaas ay dhamaato oo si xilkisnimo ay dirisnimaha lagu kala waxeeyo meeshii qoyska degan yahay qabiilka degan ya meeshii qoyska degan yahay qabiilka degan nimankaas kilka shanaad jooga ee liyo booliska oo feerfeer jooga oo farjana jooga oo ku nasa jooga oo jooga ilaa dukuuray abaale jooga war dadka meesha jooga qabiil kamida dawladdu ma tihidin labada qabiil iyo saddexda qabiil iyo afarta qabiil iyo shanta qabiil meesha degan ayaad wax u tihiin dawladdu tihiin suuragal maahan in jawaashish ay hagto adigu awoodin in xogtii abaale taan la heli kara tii burukal taan la heli kara tii feerfeer iyo farjana iyo laasool iyo baarmagoog iyo taalana heli kara in niman jawaashiisha ee idahagaan sumcadiina dilaan maaha deegaankan isbedel ka dhacay dadkaan nabaday rabaan dadkaan qori caaridiis Cabdi Ilay ku maqoonu waay Cabdi Ilay ayaa dadkaan qori caaridiis ku maqoonu waay adikana waad ka dharagsantiin waad ogtiin deegaankana waa joogtaan oo dadka waa ku dhaxnooshiin oo xogtii jirta waa ogtiin
مسؤولية دولة نمو إن القاعتان على الكربة مسؤولية دولة نمو إن القاعتان على الكربة waxaan ogahay feerfeer oo xuduud ku taala oo nimankii gafuur duubna ay 30 kilomitir 20 kilomitir u jiraan inaysan wiligeed xabadidii ka soo dhicin waxaan ogahay abaalaysan wiligeed xabadidii ka soo dhicin waxaan ogahay inay ku nasan wiligeed xabadidii ka soo dhicin waxa hirgeli waxa waaye dadka deegaanka degan ayaa hirgeliyay inaysan arrintaas dhicin maadaama nabadgelyadaas iyo sharaftaas la haasto oo haystaan dadkaas inaad isku wadaan oo dadka loo dawladeeyo oo qabyaalad iyo ninjaclays iyo hebelaasaan iyo qabiil hebelaasaan aan lagu waxayn waxaasuna waxyaabihii Cabdiilaahi xabsiga dhigay oo tikreegi meesha ka saaray ay noqdeen isbedelkan yimiday iyo dadkan in hore loo wado iyo ma taqaan ummadan la walaaleeyo inaad qayb ka noqotaan ayaan idin soo jeedinaya nimanka liyuga ah maadaama dhibaatooyinkii hore oo dhacay xayuudaha ka dhacay ka soo bilaaw halkaas iyo dhinacaas oo waqooyiga oo wajaale iyo jaamac dubad iyo laba baar iyo halka ku soo wad ku kaan feefeer soo marso dhinacan waxa geysa xayuudka dhinacaan bakool geey xaduud dhibaato dhama ka dhacday qayb weyn aad ku laheedeen ilaahay ugu mahadii in maanta maxkamad la saarin oo ciidina idin waxaynin waxaan ku baadeen on laba walxaato ah qabyaalad iyo inaan amarka adu kulli aan lahayn oo dad ka sareeyay lahaayeen ayagiina meesha ka baxeen marka waxa la idin rabaa dadka in la isku wado oo ma taqaanahay la walaaleeyo intaasaan nimankaas liyu booliska feefeer jooga aan leeyahay qolada hiiraan joogta ee ama militariga ama booliska ah ha noqdaan heer federaal ama heer hirshabeelle kaalintiina qaata oo hadday dhibaato dhacdo oo degmada feefeer dhibaato ka dhacdo degmay u dhigataa beledweynaha hal hala gaarto oo dhinac dadka taliyaha beledweynaha ninka ah oo ama booliska ama nabad sugida ama duq magaalo ah ayaa arrintaas qosaysa arrintaas galaano haddii arrinta loo baahdo in gobol noqoto gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelle ay u taala hadday noqoto in dawlad deegaan ay noqoto waara iyo Mustafa Cagtire u taala war wax hada lagu dhamay karo wax hada lagu dhamay karo oo wixii hadal ba lagu dhamay karo in wiilal Soomaaliyeed ama liyu boolis ha noqdaano ama kuwa kale hadda oo militariga Hiiraan iyo booliska Hiiraan iyo shacabka Hiiraan degan ha noqdaano ama shacabka kale Itoobiya dhex degan oo labada dhinac ah ha noqdaano war wax hadal lagu xalli karo wax hadal lagu xalli karo in dad ku dhamaadaan ma loo baahna aqlina maahan qarniga 20 la maraya dil iyo dhac iyo kufsi iyo handadaad iyo hahallin iyo kada 10 sanadood ayaa deegaan ku haysan qabiil Soomaali ah oo kiilka shanaad degan oo xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya degan oo dhibaato aan gaarsiinaha ma jiro haba kala badnaato 10 sanadood dil dhac kufsi handadaad wixii lagu qaban waayay wallahi inaan hadda aan lagu qabanayn war casharadii hore wax lagu barto war rag wax walaalo ku dhaamana male nabadgelyada nin kasta ama askari ama shacab ay tan u tahay wallahi hadii colaad u dhacdo oo qabiilada feefeer degan ay colaad dhex marto inaan militarigu colaad ku joogo oo soo nabad ku joogo feefeer liyu booliska oo soo ku joogay nabad feefeer ku joogeen inaysa intaasu nabad ku joogeen war nabadaas laga shaqeeyo dadka odayaasha iyo aqoon-yahaniinta iyo dadka ganacsatada ah oo arrimahaas dhaxgalka iyo isdhax socodku ay dan ugu jirto haleeyahay arrimaha la dajiyo dadkan kala tagi mahayaane meel yaro beerho banaana oo ilaahay duugan iska falana falamaysid iyo waa falana in dad ku dhinta ma bahanba meel iska duura oo sanadkii hal mar in waraabta laga yaabo oo liin ku aalin oo camba ku aalin oo moos ku aalin oo ilaahay duugu rooyaa duura war in dad lagu laayo ma ahanba war walaalow tabco 3 bilood kadibna waaba ka tagaysaabe wareer mala balka ka qaadi masakada aduna mid kale markuu roobku ima abuuro yaa ku diidan yaa ku diidan war wax intaas ba ah dad yaan lagu laaynin oo ilaahay doo ku roon yahay umad lagu sii kala fogeynin kuwa beeraha ka tabcay burukur iyo ma taqaanaa yaabaalay oo yaanyada iyo cambihii iyo liintii abuuray meel safriyaan waayay war waxaan leeyahay war bartiina leedu ku imaana war ka shaqeeya waxaad ka shaqeysaan inaad dadka dhex gashaan
oo baabuurka kala beer ka soo laxa tartiib intuu abaale iyo burku tago oo qudaarteeda ka soo qaato intaas hadan idinku jirtaa waxaad idinku jirtaa inaad inta feefeer ka soo baxdaan tartiib balweyn 40 kilomitir intii aad imaataan waxaad ka qabsataan war dadkan nabadgelya deeqdiyo waalima deeqay intaas laga shaqeeyo yah intaas ayaa deeqdaha haleedka helo haddii la diido oo ay noqoto meeshaan la tabci maa iyo meeshaan xoolo ma daaqi karaan iyo gurigaan lama digi kara iyo waxaan aaminsanahay awaaqo xumo iyo fool xumo unbaa laga sii qaadayaa yah nin inuu dhinto rabano cid celinaysa ma lahan laakiin fidnada in laga hortagay leedahay arrintaasna intaas uga baxo yah arrintaasna intaas uga baxo waxaan rabaa arrinta golaha deegaanka raba in balweyn loo dhiso yah arrinta golaha deegaanka ee magaalada balweyne madaxweynuhu wuxuu furay laba saddex habeen ka hor waxaa la go'aamiyey in deegaan lagu qaybsado deegaan in lagu qaybsado ayaa la go'aamiyey waxaan maqlayaa durbaba qabiilo diidan wariiraan 14 qabiila degan iyo intaan ka deganahay iyo intaan deganahay intaan leeyahay waxaasoo dhan waxa isku laqaya golaha deegaanka oo deegaan lagu qaybsanayo oona 4.5 lagu qaybinayn oona qabiil lagu qaybinayn oo nin walba oo meesha deegaan ku leeyahay la imaaway tahay haloo soo diyaar garoobo qabiilkii ama siyaasigii diidan in deegaan lagu qaybiyo golaha deegaanka magaalada balweyne iyo buuloburta iyo maxaas iyo matabaan iyo jallaqsi ninkii diidan iyo heer gobolba waxaan aaminsanahay waa tuug waa qaacin xaq oo salahayn oo hadda haya waan in laga qaado weeyaan kan diidan in golo deegaan oo heer degmo iyo heer gobol hiiraan lagu saleeyo waa tuug qaacina waana in xilalka uu haayo oo ama hiiraan ka haayo oo magaca hiiraan ku helay ama oo ka haayo Hirshabeelle oo magaca hiiraan ku soo galay dhammaantood waa in laga tiriyaa ninkii deegaan haasto la imaaw fagaarahaas la joogaa wareer kuwa dhamaaday ninkii diidan asigaa garanaya marka meeshii oo warkiisa uu ka shaqeynayo asiga ayaa garanaya meeshii warkiisa ka shaqeynayo intaasna waxaan rabaa dadka odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka inaan u sheego oo arrintaas in sida hadda loo go'aamiyo oo go'aansanaato deegaankaas ay ku saleysnaato war ninkii deegaan haasto la imaaw UN jooga Amisona joogta kormeerayaal federaalka jooga kuwa Hirshabeelle jooga kuwa heer gobolka jooga la imaaw la imaaw hadda diidid markii deegaan lagu qaybiyo oo arabtid inaad adoo hal tuulo oo laba bush taala meesha ka degan in qabiil 1500 oo tuulo degan ina wax la qaybsato haddii arabta qabiil 500 oo tuulo degan wax la qaybsato haddii arabta qabiil 100 tuulo degan wax la qaybsato oo isku tira qaadataan adigoo laga yaabo magaalada balweyne inaad qabiilkaada oo dhan markii la isku darabo oo 10 guri ka badan ku lahayn inaad la tartanto qabiil 700 oo kun oo guri kula magaalada oo isku xaq noqotaan wax suuragala maahan deegaan golaha deegaanka waa in deegaankaas lagu saleeyo oo deegaankaas nin walba wuxuu yimaado la soo herimaado ninkii diidow adeer wada nasiibka yaqaan gola deegaan sidaas ayuu ku yimaada adduunyada dhan deegaana wax lagu xulo qabiil lagu xulo 4.5 lagu soo xulo guriga meesha kula lagu soo xulo wax war deegaan yaa haasto intaasaan uga baxayaa غير ما يدير جينيا قفكي ربا إنه حق نقول سياديو وحواي واسود وينيا